dhicin markaas oo keliya ayaa loo arki karaa mid la aqbali karo. laakiin ka hor inta uusan madaxii cunto kariyaasha hadalka dhammayn, ninku wuxuu mar kale sameeyey mucjiso. waxqabadkiisa heerka sare ah ayaa mar kale kasbaday qirashada dadka oo dhan, laakiin madaxii cunto kariyaasha ee ag taagnaa ma lahayn qorshe uu ku sii daayo. maalintaas iyadoo nin ku shaqaynayo ayuu madaxii cunto kariyaasha si toos ah u dhex galay, wuxuuna ku amray inuu cunto u geeyo macmiilka. laakiin markii uu arkay saxanka uu cunto kariyuhu sameeyey, ninku wuxuu galay feker qoto dheer. madaxii cunto kariyaasha ayaa isla markiiba canaantay markii uu taas arkay. balse ninku wuxuu farta ku fiiqay waxa ka qaldan saxanka, wuxuuna si cad u sheegay in macmiilku uusan hubaal ahaan ku qanci doonin. isla markii uu saas yidhi, cunto kariyuhu wuu carooday, wuxuuna damcay inuu ninka cashar u dhigo isla markiiba. xataa shaqaalihii kale ayaa la saftay cunto kariyaha. intii ay labadoodu doodayeen, haweenaydii ayaa timid si ay u hubiso saxanka. cunto kariyuhu wuxuu isla markiiba ninka ka dafay saxankii, wuxuuna u dhiibay haweenayda. laakiin isla markii uu macmiilku cunay wax yar, wuxuu dareemay in wax qaldan yihiin, isla markiiba wuu xanaaqay. aabaha haweenayda ayaa dhadhamiyey saxanka, wuxuuna ogaaday in cuntada aan si fiican loo sameyn.